Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Waxay maqaayadiisa ku cabi jireen mukhaadaraad iyo xashiish iyo waxyaabo kale. Koox ducaad ah ama tabliiqa ah ayaa waxay go'aansadeen in dhalinyaradan ay ugu yeeraan Alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa. Waxayna mar walba qayb ka mid ah dadka cusaada ah ee meesha dunuubta ku gala intay ka wadaan gelin jireen masaajidka. Waxayna sabab u noqon jireen in ay hanuunaan oo ay Alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa u laabtaan oo ay toobad keenaan. Samaara waa ninka iska leh maqaayadan mukhaadaraadka lagu cabo. Mar walba xilliga ay cusaadan ama kuwan daroogistayaasha ah ay yimaadaan Samaara agtiisa, ducaadaas ayaa u imaan jirtay, waxayna u wadi jireen masaajidka si ay Alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa u toobad keenaan oo ay u hanuunaan. Kadibna waxaa ducaadan aad u dhibsaday Samaara oo ah ninka iska leh maqaaxida. Wuxuuna og yahay xilliga ay maqaayadda yimaadaan oo ay dadka ugu yeeraan Alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa. Kadibna ma malaysan kartid wixii uu ninkan maqaayadda iska leh ducaadan ku sameeyey. Wuxuu milkiilahan maqaayadda iska leh soo qaatay burjiko aad u weyn, wuxuuna ka buuxiyey dhuxul ololaysa ilaa ay ka noqdeen dhimbillo dab ah oo aad u fara badan. Markii ducaaddu ay yimaadeen si ay dadka u wacdiyaan, ayuu ninkan maqaaxida iska leh wuxuu soo qaatay burjikadii oo ay dhimbillada dabka ah ka buuxeen, wuxuuna ku firdhiyey ducaadan. Kadibna ducaaddii qaar waxaa ololay ama ka gubtay dharkooda, qaarna waxaa ka gubtay timihii garka, qaarna waxay ka gubteen wejigooda. Kadibna ducaadan ayaa tartiibkooda si deggan isaga soo laabtay oo waxay soo aadeen masaajidka. Kadibna waxay u fadhiisteen in ay ka tashadaan arrintan iyo wixii ay sameyn lahaayeen. Kadibna tashigooda iyo falanqayntooda kadib waxay isku raaceen in ay yiraahdeen, uma yeerayno dadka soo fadhiista Samaara maqaayadiisa oo keliya, balse waxaan hanuunka ama hidaayada Alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa ugu yeeraynaa Samaara naftirkiisa. Kadibna nin iyaga ka mid ah ayaa intuu soo baxay, wuxuu mid ka mid ah dadkii deriska ahaa wax ka weydiiyey Samaara iyo xilliga uu maqaayadda xiro. Wuxuu u sheegay in uu meesha xiro 3 ama 9 saac ee habeennimo kadib markii cabidda daroogada awgeed jirkiisu uu kala daato, caqligiisuna uu ka tago oo uu noqdo sida alwaax meel iska yaalla oo kale. Marmarna wuxuu iska dhex seexdaa maqaayadiisa ilaa waagu uu ka baryo, xaaskiisuna waa ay ka nasataa. Isla maalinkaas markii la gaaray 9 saac ee habeennimo, waxay ducaaddii isku qaybiyeen 2 qaybood. Barkood waxay ku hareen masaajidka, iyaga oo tukanaya oo qalbi khushuucsan oo dhab ay ka tahay Alle subxaanahu wa tacaala uga baryaya in uu Samaara hidaayada ama hanuunka u qoro iyo in uu ka towbad aqbalo oo uu waddada toosan ku hanuuniyo. Barkoodna waxay aadeen Samaara maqaayadiisa. Markaas bay waxay arkeen isaga oo dhulka iska yaalla oo ku haftay cabidda khamriga iyo mukhaadaraadka. Meeshuna waxay ahayd meel aanan nidaamsaneen. Waxay ahayd meel isdhex taalla oo kuraastuna ay dhulka wada daadsan yihiin. Kadibna waxay ducaaddii ku dhaqaaqeen in ay dhaqaan oo ay nadiifiyaan oo ay dib u nidaamiyaan maqaayadda. Samaarana wuxuu ahaa mid wacyigiisa ama caqligiisu uusan joogin oo ay la tageen sharaabkii iyo mukhaadaraadkii uu cabayay. Markaas bay intay xambaareen waxay u qaadeen masaajidka, waxayna ka siibeen labiskiisii wasakhda ahaa, waxayna u geliyeen qamiis ka mid ahaa noocyada ugu qaalisanaa uguna daahirsanaa dharka, waxayna ku buufiyeen baraafuun aad u caraf badan, waxayna u nadiifiyeen ciddiyihiisa isaga oo hurda oo aanan waxba dareemaynin. Markii la gaaray adinka salaada subax,
ayuu wuxuu Samaara dareemay adinka. Markaas buu intuu isku naxay indhaha kala furay. Markaas buu wuxuu is arkay isaga oo ku labisan qamiis cad. Isagoon waxba fahmin oo aanan waxba ka ogeyn wixii dhacay, ayuu wuxuu yidhi, anigu ma noolahay mise waan dhintay? Kadibna wuxuu dhinaciisa ama agtiisa ku arkay wiil dhalinyaro ah oo gacanta ku sida koob caano ay ka buuxaan. Markaas buu wuxuu weydiiyey, xaggee baan joogaa? Maxaase dhacay? Markaas buu wuxuu ku yidhi, ha isku nixin walaalkaygiyow, caanahan cab, iska seexo oo iska naso. Kadibna caanihii ayuu cabay isaga oo cabsi iyo argagax la gariiraya oo leh, maxaa dhacay? Markaas buu sheekhu ku yidhi, ha welwelin, mar dhow ayaad ogaan doontaa. Soo kac walaalkayga Samaarow, aan soo weyse qaadanno si aan u tukanno salaada subax. Kadibna waa uu soo weyse qaatay, wuxuuna galay safka imaamka gadaashiisa, isaga oo hareerihiisa eegaya oo weli aanan fahmin wixii dhacay. Markii salaada laga baxay ayuu wuxuu imaamku u kacay inuu dadka wacdiyo oo u naseexeeyo oo naarta uga digo. Isagoo sheekhu uu naarta ka hadlayay oo uu oynayay, ayuu wuxuu Samaara sheekhii dhinaciisa fadhiyay wuxuu weydiiyey, muxuu la oynayaa sheekhan? Markaas buu sheekhu ku yidhi, walaalkaygiyow, markuu imaamku wacdiga dhammaysto isaga weydii, isaga ayaa kuu jawaabi doonee. Kadibna markuu sheekhu dhammaystay ayuu Samaara soo istaagay, wuxuuna imaamka weydiiyey, sheekhow, ii sheeg maxaad u oynaysay? Kadibna imaamkii ayaa aad u sii ooyay, wuxuuna ku yidhi, Samaarow, naarta, waxaan ka baqayaa naarta, alle ayaana ka baqayaa subxaanahu wa tacaala, innagu uma aanan diyaargaroobin naarta. Kadibna sheekha ayaa ku yidhi, Samaarow, alle ii bari, waxaa laga yaabaa inuu kaa aqbalo. Markaas buu Samaarihii caasiga ahaa gacantiisa samada ku taagay, mana uusan garanaynin waxa uu ku duceeyo. Markaas buu wuxuu yidhi, sheekhow, ma garanayo wax aan ku duceeyo. Kadibna sheekha ayaa ku yidhi, aniga ayaa kuu tilmaami doona, adiguna waad ku ducaynaysaa. Wuxuu ku yidhi, waxaad tidhaahdaa, Ilaahayow, sheekha naarta ka badbaadi. Samaarana wuxuu dhahayay, Ilaahayow, sheekha naarta ka badbaadi. Ilaahayow, ummadda Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam naarta ka badbaadi. Samaarana waa uu daba dhahayay, kadibna sheekha ayaa sidaas ugu tilmaamayay ilaa Samaara naftirkiisu uu bilaabay inuu ooyo. Markaas buu sheekhu wuxuu ogaaday in hidaayadu ama hanuunku uu gaaray qalbigiisa. Markuu sheekhu arkay inuu ooynaayana wuxuu sii siyaadiyey ducada, Samaarana waxaa sii siyaaday oohintiisa. Markaas buu intuu fadhiistay aad u ooyay, sida isaga oo qalbigiisa la nadiifiyey oo macaasida laga dhaqay oo kale. Kadibna Samaara ayaa masaajidka ka baxay, wuxuuna u tagay xaaskiisa, isaga oo wata qamiiskii caddaa ee carafta badnaa. Markii ugu horraysay ee uu arkayna wuxuu ku yidhi, anigu alle ayaan u towbad keenay. Markaas bay intay habsiisay isku duubtay farxad darteedana la ilmaysay, iyada oo aad ugu faraxsan towbad keenidiisa. Kadibna Samaara ayaa maqaayaddii soo aaday si uu u jajabiyo dhammaan wixii munkarka ahaa ee meesha yaallay. Markaas buu wuxuu arkay maqaayaddii oo inta la nadiifiyey dib loo habeeyey. Markaas buu wuxuu yidhi, maxaa dhacay? Kadibna wuxuu ogaaday in culimadii ay nadiifiyeen. Markaas baa waxaa u siyaaday jacaylkii uu u qabay. Kadibna maqaayaddii intuu albaabka u laabay ama iska xiray ayuu wuxuu noqday nin daaci ah oo dadka ugu yeera Alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa. Waxaana gacantiisa ku soo towbad keentay kumannaan ka mid ahaa kuwii mukhaadaraadka iyo khamriga cabi jiray.
wuxuuna Samaara noqday mid ku takhasusay inuu kuwa cusaada ah iyo kuwa daroogistayaasha ah Alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa u celiyo oo uu dariiqa xaqa ah tusiyo. qofna ha ka quusanin, qof walba waa uu isbedelayaa Alle subxaanahu wa tacaala idinkiisa. adigu waxaad samaysaa waxa adiga ku saaran, dadkana waxaad ugu yeertaa bilxikmati walmawcidati alxasanati ila Allah. kadibna arrimaha dhammaantooda Alle u daa subxaanahu wa tacaala, maxaa yeelay isagu waa mid qadiir ah oo wax walba awooda subxaanahu wa tacaala. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. waxaan filayaa muuqaalkan in aad ka wada faa'iidaysateen oo aad ka hesheen. fadlan haddii aad ka heshay, ha iloobin muuqaalka in aad like saarto si uu u gaaro asxaab kale oo aad u fara badan. haddii aad inagu cusub tahayna fadlan ha iloobin channelka in aad subscribe saarato si aad inoo dhiirageliso. gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. tan iyo kulanti dambena sidaas iyo nabadgelyo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.